السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan isweydiinaynaa maanta su'aasha ah maxaan u noolnahay sababtaan u noolnahay ee ilaahay nafta inoo geliyey ee bini aadin inooga dhigay maxay tahay su'aashaas haddii aan jawaab u helno waxaan u malaynaa wax walbaba jawaab ayaan u heli doonaa insha allahu tacaala sidaad ogtihiin walaalayaal baabuurka markii meesha la geeyo shidaalaha ee aad shidaal ku dhaamiso ee aad furaa ku rogto ee aad waddo waa inaad ogtahay meesha u socoto waa inaad ogtahay adreeska aad u socoto hadday safar dheer tahay hadday safar gaaban tahay waa inaad ogtahay meesha u socoto waa inaad ogtahay mugga aad ka soo baxdo shidaalaha jidka meesha aad ka qabsahayso ma bidixaad aaday ma midigaad aaday waa inaad ogtahay ka war haddaad shidaal isaga shubto ee aad tiraa ma aqaa meelaan u socdo iska wadda baabuurka iska waddo ee waddadii ka hortimaadaba la jarto ee ka hortimaadaba la jarto ee iska wadda ee baabuurka muguu shidaal ka dhammaado ee uu ku soo shido shidaalka amaba maahane ee biyuhu ka dhammaadaan aad meel shidaalaha ku leexiso ee shidaal ku shubto ee iska wadda haddana ee haddana kaa dhammaado ee haddana iska wadda haddana ee haddana ku shubto macno ma samaynayo baabuurkaas waxaa laga yaabaa barkayn inay saas u badan yihiin sababtaan u nool nahay oo ilaahi subxaanahu watacaala adduunka inoo keenay hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay'an madkuura waqti aanaan jirin ayaa jirtay oo hamiinkii hooy iyo aabba isku tagaayeen ee candhuufta yarta ah taranka ka soo baxaysay ee magaasna la ka abuurayey maanaan jirin xataa muggi aad 3 bilood ama 4 bil caloosha ku aheeday ma jirin xataa muggaad dhalahaysay calooshaas uun hooya waa buurneed walaa ka nuuxnuuxsahayey 90% waxaa la lahaa cunugay waddaa inaad falka waddo inaad cunug waddo inaad diyaala ku roon yahay waddo haan allah subxaanahu watacaala mahaas waxa galsha ayaa ogaay annanku maanan ogeyn wax jira maanan ahayn nolol waxaan ku jirnay aan jirin muggi aan bannaanka nimiday ee aan dhalannay akhrajakum min buduuni ummahaatikum wallahu akhrajakum min buduuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'an wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'idata lacallakum tashkuruun muggi aan bannaanka nimiday ee waaw cunuga ou yidhi ou ooyey oo dadka reerihiisa joogana sida aabbay iyo hooyo na ay ku farxeenay qusleen muggaas ayaa waxaa ku bilaabatay nolol cusub waayo noloshii horo waxay aheeday nolol aan jirin calooshaad ku jirtay mugna maba jirinba nolol waxay ku bilaabatay muggan bannaanka aad timiday okay bannaanka mugga aad timiday maqal iyo samac iyo arag iyo haddii la koran yahay fawaa'id lagu yeelay muggaas ayaa waxaa ku bilaabatay nolol iyo howl hawshaasna waxay ku dhammaatay haddana waqtigii ifka lagaa wado ee qabriga laguu diro ma 50 ma 60 ma 20 ma 10 alcilmu cinda allah wayasaluunaka cani iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila nabi maxamedow waxa ay ku weydiinayaan oo ay wax kaa warsahayaan ruuxda waxaad tidhaahdaa ruuxda rabbi ayay gaar u tahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila bini aadankana waxba maanaan barin cilmi ma barin ilaa haddii aan barnay wax yar oo macnaha oo ilaa qaliilan wax yar waaye mugga noloshaas haddii alla kuu ron yahay saas u soo socotay ee dhammaato ee aad qabriga gasho waqtiga aad qabriga ku gelayso allah subxaanahu watacaala ayay ag taallaa ma 10 ma 2 ma 1 ma 100 taas ilaahay subxaanahu watacaala ayay u taallaa haddii aad taajir tahana waa dhiman haddii aad faqiir tahana waa dhiman haddii aad madaxweyne tahay waa dhiman wax kasta oo ahaataba kii baxaa tahay habeenku haba dheeraadee maalin unbaa xigto noloshu haba dheeraatee mawd unbaa xigo waa ogtihiin walaalayaal haddii loo dhimahayo faqiirtinimo boqolaal faqiireen ah ayaa jirta oo boqolaal sano nool iyo boqolaal taajireen ah
labaatan jir soddon jir konton jir ku dhintay muga dhimashadu waqti ay leedahay maahane ma lahan haddii alla ku roon yahay kaasaa hormaraya kaasaa dabamaraya ma lahan ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون haddii aan u soo noqday su-aashii jawaabteedii haddii aan isweydiino sababta aan u noolnahay wax kale ma ahan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun allah ilaahay nooma abuurin ilaa inaan caabudno maahanin noloshaan aan wadno waa inaan waxaa la rabaa inaan uun ku gaarno cibaadada ilaahay maahane inaan iyada isla haysiino oo hadafka u noolnayn inuu yahay inaan lacag tacbanno hadafka u noolnahay inuu yahay inaan awlaad dhalno hadafka u noolnahay inuu yahay inaan lacag maxaa la dhihi jiray magac iyo suldaan iyo samaysano ma ahan taas waa wasiilo la rabo nolosha inaad ku gaarto maxaa yeelay haddii aadan wax cunin nolosha gaari ma kartid haddii aadan shaqaysan nolosha gaari ma kartid culaysay kugu naqaneen mugga waa wasiilo la rabo inaad nolosha ku gaarto laakiin hadafkaad u nooleed hadafkii la rabay inaad haddii alla ku ron yahay ka faa'iidaysato ma ahan waa inaan ogaano sababta adduunka ilaahay inoo keena haddii aan ogaano su-aashaas jawaabteedana su-aal walba iyo jawaab walbana waa inoo sahlanaayo insha allahu tacaala adduunkan ad aragteen iskor saaran haddii alla ku ron yahay kala nadaamsan waxa naloo keenay waa uun inala ku jirriba bis liyabluwakum ayukum axsanu camala inaan idinku jarrabo kiina idinkugu camal wanaagsan ayaa ilaahay yidhi liyabluwakum ayukum akharu camalan ilaahay ma dhihin ayukum akharu maalan ilaahay ma dhihin ka idinkugu maalka badanne ka idinkugu awlaadda badanne ka idinkugu magaca dheerne lama dhihin waxaana la yidhi kan idinkugu cabsida badan kan idinkugu haddii alla ku ron yahay muga haddaad leedahay magaca aad leedahay ilaahay subxaana wa tacaala uga baq haddii aad leedahay maalka aad haysato allah subxaana wa tacaala uga baq sidaqayso cun dadkaaga siiso haddii aad leedahay awood ama awood ilaahay iska leh haddii aad meel xukunto amba guddoomiye ahaaw ama madaxweyne ah amba waxarta ahaabe dadka hoostaada joogo ka amar qaato si cadaalad ah ugu cadaalad fal oo allah subxaana wa tacaala uga baq maxaa yeele aakhiro waa lagu weydiinaa haddaan su-aashaas isweydiino sababta aynu u nool nahay allah subxaana wa tacaala waa inoo waafajinaa haddii aan isweydii weyno ee aan iska soconno uun oo aan xumaha uun isaga bareerno ee sababta aan u noolnaha aanu kaan ogeyna waxay gelee falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum muggi ay leexdeen ilahay waa sii leexiyey haddii aad leexato ilahay waa ku sii leexiha haddii aad dhinaca wanaagga aadana ilahay waa kuu fududayha inkastoo qadarta ilaahay ay leedahay oo ilahay qadarta laga helo oo aanu kaan leexa karin toosina karin haddana adigu oon wixii aad la timaado ayaa ilaahay kuu badiha mugga adiga isku day inaad dhinaca wanaagsan allah subxaana wa tacaala ka barido sababta aad u nooshahay ee aad adduunka u joogtana wax kale ma ahan inaad caabuddo ilaahay bis uun wax kale ma ahan mugga allah subxaana wa tacaala ayaan weydiisanaynaa raare ahasho ilaahi subxaana wa tacaala ha inaga dhigo kuwa aan qiro muggi la yimaado oo kitaabkooda laga siiyo gacanta midigta kuwa aan khiro muggi yimaadeen oo nabigu sal allahu alayh wasalam waxaa la yidhi nabi aakhire muggi la tago dadku ay barna qalaan naarta walciyaadu billaah barna ay galaan jinnada kuwa naarta gala waxaa la yidhi dad duka jiray laakiin galabgalab iska aheedo uun ilaahay ku xirnaay oo si uun wax uga dhinaayeen ayaa waxay ka qaylayaan naarta muggaasay waxay leeyihiin yaa muxamada yaa muxamada yaa muxamada ay leeyihiin muggaasaa kuwii naarta kula jiray oo waxba haysan ayaa waxay leeyihiin oo aaway salaaddii aad duka jirteen iyo haddii alla kuu roon yahay iyo khayrkaa wadi jirteen islaamnimadaa sheega jirteen
ama waxay idin tarta maanta muga nabi maxamed ayaa wuxuu tuuga ilaahay wuxuu le ilaahayow kuwaas magacayga ayay sheegteen ee bal hal mug maha ka soo bixi mugaasa waxaa leeyahay u tagaa la leeyahay ee soo bixi sujuudad ku aqoonsan doontaahe kuwa sujuudda leh waaye qofkii aan sujuudin mugga waa ahaat waa soo bixihaa ayagoo qojolofay oo haddii alle kuu roon yahay naartii gubtay ayaa fag la soo siihaa muggaas mugga ilaahay fag soo siiyo ayaa ilaahay wuxuu amraa malaa'igta inay ku tuuraan meel la yidhaah haddii alle kuu roon yahay nahrulhayaat webiga nolosha mahaasaa lagu soo dhaqaa mahaasaa xoogaa nafta lagu soo gelihaa xoogaa naf mugala waa ku jirtee waxaan ka wadaa yacni naf ma lahan le qofku hadduusan nooleen naf ruuxo uu wataa maahane naf kaloo jirahaaneed ma leh mugga xoogaa lasoo baarta la meyeeriyeyo xoogaa lasoo naashnaasho ayaa waxaa la keenaa jinnada muggaasaa waxaa lagu qoraa albaabadooda dadkii nebi maxamed sala allahu alayh wasalama shafaacadiisa uga soo baxa jannada waa kuwaana mugga ma awoodno inaan naar xataa saacad ku jirno ma awoodno waxaa inoo ron mugga inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanno khayrka ilaahay tala saaranno wahada billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh